dagaalka dowladaha shisheeye ee ku hayaan Suudaan kuna baabinayaan mustaqbalkii dhaqaalahoodii iyo caruurtii Suudaaniiska genocide ee san marin xitaa Falastiinta la marsiinayo waxa ka daran munaafiqnimada Soomaalida maanta soo hadal qaadaya iska dhigayana inay u dabqanayaan Suudaan iyagoo intaas oo sanadood ka aamusnaa laakiinse markii hadda Mareykankii iyo Yurubiyaanki iyagu soo hadal qaadeen xadgudubka lagu sameeyo Suudaan inay Soomaaliduna ka hadlaan sababtan saa u leeyahay wax kale ma waxa weeye Soomaaliya la'aanteed haddii aysan dhabar jabin lahayn geeska Afrika oo dhanba Suudaan maanta xaaladda kuma jiri lahaynba Suudaan waxa u sabab ah hubkan lagu baabinayo iyo dadkan loo adeegsanayo Soomaali Erdogan markuu Soomaaliya soo galayay uu campaign ku galayay dadkii Soomaaliyeed oo gaajeysan una ku dhahay adduunka hadduu inaga jeedsaday Ilaahay aniga ayuu idinkii soo diray roodhidana hooya shidaalkiina keena saliidana hooya airbortkiina keena qasacan tuunaha hooya badiina keena iyo tagadiina intaas markaan ku qanacnay oon lahayn Turki waa walaalaheyn uu isagu danihiisina airportka ku ilaashanaya inuu ku dhoofin karo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa wixii ka shaqeeyaba islaamaheena iyo hooyooyinkeena ku soo diray ay la tababaray inuu san ka urin qarax ee san meesha ku qarxin madaxda Turkida uu badeenina Ethiopian u tababaray inay meeshaas hadda ku ilaaliyaan Soomaalida burcadbadeedka lagu tilmaamayo iyo inaysan meeshaas ka tahriibin ee wadamada Carbaha galin ayaanu dhahaynaa horumar baan ku gaarnay waxa soo dhan waxa ka sii daran haddana inay isla iyagu Emiratiguna markaas ay ku heshiiyeen inay hortaan Abiy Ahmed inay ku abaal mariyaan Nobel Peace Prize asagoo wali xitaa farq qaadinba taas oo tusaysa inay waxa Nobel Peace Prize kan la gato lacagta lagu gadanayana qofka la siinayo inuu isagu yahay qof xadgudub ku sameeya bid'aadnimada sida maanta uu Netanyahu u tartamayay iyo uu Trump xitaa isagu u rabay inuu qaato Nobel Peace Prize waxay ku tusaysaa qofka hadduu dhigyacab yahay uu dhaqaale haysto uu dad badan dhaqaale u sameynayo inay suurtagal noqonayso in loo sharaxo uu ku guuleysto Abiy Ahmed isagoo farq qaadin ayaa horta dadka ummadda hortooda loogu yeelayay ninkii nabad sugidda oo wadankiisii oo dhibaato ka jirto dadkiisii kala xasuuqayo ayaa internetkii la baqtiyo adduunka loo sheegeenba iyadoo sidaas ay tahayna Emiratigii haddana ee Soomaaliland kula heshiiyeen barbada takadiina aanu anagu gacanta ku dhigno oo uu soo hoos dhex galiyeen Ethiopiankii markii la ogaadana war Ethiopia ba meesha ku dhex jira la yiri waad saxeeyeen oo la laakiinse shacabkiina waxa uga sheekaysiin inay ku leeyihiin Ethiopian Airlines intaas oo %. Ethiopian Airlines ka ay share ku qaadanaysa Soomaaliland haddii share ku qaadan lahayd maxaa loo weydiin waayay markii ay dhaheen Soomaaliya visa lagu soo galayaa Soomaaliya meesha doonta ahaato ama Hargeysa ahaato ama ahaato Laascaanood ama Garowe ama Kismaayo ma markaa dhahaan Ethiopia Airlines ma tagayso Soomaaliya Ethiopia Airlines waa ku khaldantiin inaad idinkuna ku soo qortiin website-yadiina oo adduunka ku dhahdeen hey visa waa dadka weydiinayna waxa way wax la iska rabo xitaa hadaan Soomaaliland tagino dadkan ugu sheekaysiin hoos ahaan dadku inuu weydiin weyne iska gala laakiin sida tusaale ahaan adduunka waan tusaynaa inaanu weydiinayno laakiin si qorsheed in keenin galina waxa soo dhan waa xadgudub waa yasitaan waa bahdilaad oo shacabka laga qarinayo takadaas waxa loo la wareegay sida Turkida loo la wareegeen inay hub ka soo dajiyaan hubkan lagu baabinayo maanta Suudaaniiska loo adeegsanayo militariga kuwa dhiseen Emiratigan ee lacag siiyeen calooshiisa ku shaqeystayaasha ka hor imaanaya dawladda oo raba inay macdanta dhacaan muuqaalkan aan hoos inii soo dhigay aad ka daawan kartiin sanad ka horba malaaka sameeyay muuqaal oo leeyahay meeshaas waxa ka socda dagaal adag oo lagu boobayo macdantii Suudaan maadaama ay Emiratigu rabaan inay shidaalka ka marmaan inay rabaan inay macdantan noqdaan sida Switzerland oo kale center of the world kuwa waxa ka ganacsadaba iyagoo wax soo saarin laakiinse ay ka dhigaan meesha wadamada Switzerland oo kale ba waxa soo dhanna waxa keenaya in Ethiopiankana loo ogolaaday inay baddaas ilaaliyaan Soomaaliya la siiyo maadaama laga baqayo inaysan Yementii meesha qarax ka abuurin Soomaaliduna ku darsan kana xumaanba haddana drones kan ajiibka ee adeegsanayaan Ethiopia militarigeeda iyo jabhadan Suudaan oo Turkidu sameeyso oo adduunka ka aamusan yahay laakiinse marka la baaro sirdoon private waxa la hayaa investigative journalist ku baaraan arkayaanba baashan Turkida sameeysan Turkida waxa iska leh waa hubkii Turkida holaha soo dhan waxa loo soo mariyay dhul Soomaaliyeed
al-shabaab kan aad ka qaylinaysiina imaaraatigaas etoobiyaankaas turkidaas danaha wadamada shisheeye ayuu un baabiila kolba wixii lagu shubto un bay hirgelaysaa dhulkan ay haystaan ee maamulaana ma aha dhul ay iska haystaan ee dadka xitaa beerta ka qaadanayaan waxa weeye waa logistic ahaan ayay al-shabaab dhul Soomaaliyeed ku haystaan weligoodna sii deyn maayaan ilaa iyo intaad san horta aanad waxaan ajnabiga danaha Soomaaliya ka leexat wadanka ka saarinba danaha ay ka leeyihiin al-shabaab waxa weeye marka badal laga soo dejiyo hubkii waaweynaa oo la dhaho dowladda ama Soomaaliland ahaato ama Soomaaliya ahaato airportkan ama takadan waxa maamulaysa Turkidii iyo Imaaraatiga waxaan aan soo dejisana anaka check garanayna checking ka markaan marsanana waxaanu saarnaa maadaama ay yihiin alaab anaka aan leenahay dhulkeena marinayna ma baari kartiin waxa la marinayaa meeshaas dhulka ee maamulaan al-shabaab oo loo geenaya dadkii u baahnaa ama ahaato al-shabaab inay ku haystaan ama Etoobiyaanka loo geeyo ama loo geeyo Suudaan oo jabhad oo ku dagaaltamaysa ilaa aqalgal maaha inay maanta dagaalkan ee Suudaan la isku dhex jabiyay inay takada Suudaan ka soo dejistaan aqalgal ma ahana inay xitaa Masar ka soo dejistaan oo lagu baabiyo ummadda Suudaaniska Soomaaliya baa waxaan dhan u sabab ah Soomaaliya markaan leeyahayna waxaan ka hadlayaa xildhibaanada wasiirada iyo madaxweynayaasha ma ahana inaan iyaga hadda aan ka wado hal la duqeeyo hal aflagadeeyo hal la eedeeyo waxa weeye kaliya inaad ogaatiin wadanka waa afduuban yahayna wuxuuna u afduuban yahay siyaasadii la aasaasay oo dowladahan markii la soo iimaanay Kenya lagu soo aasaasayay oo Kenya oo ka qayb qaateen oo wadamada adduunka yimaadeen ayuu noo sameeyay sal ama foundation loogu talagalay inay Soomaaliya noqotaa wadamadan kale ee dhaqaalaha gashta u soo dhex marsadaan siyaasiyaal ka sameystaan madaxweyne ka doortaan inay ka soo goostaan wixii u baahan yihiin waliba Soomaaliya marka inta hadda laga jaqo shidaalkeedii waxay noqotayna in xitaa qacan dheer laga sii tiigsado oo Itoobiya la heshiyo oo Itoobiyaankiina maanta la gatay oo lagu dhahay war Abiy Ahmedow anaka la shaqeynaysa adigana wadankaaga cid ka qaadi kartaa ma jirto cid walba wada dagaali kartaa adduunka uma sheegno internetka waan ka baqtinana war lagama hadli karaba Suudaan tan dhulka soo qabso ciidan yeelo Soomaaliya badda ka qaada laakiinse waan sii durkayna awood baan ku yeelana Chad baa la galaya kolba meel baa la sii galaya gaaladii baa yaabtay Mareykankii baa yaabay Faransiiskii baa yaabay Ingiriiskii baa yaabay oo dhahay walaanaku hadii aanu xitaa ahayn dad kala diina oo muslim aanu isla ahayn xitaa oo dhaqan isla haysan markaan anaku Afrika nimaanaynin dad baan u keenay waayo meeshaas waxaan u baahnaa dad meesha maamula oo shidaalkii qodaya dahabkii qodaya oo idin sameynaya maxaa lahaa maraakiibtii takadii railway maxaa meeshii tareenka waxaas oo dhan ayaanu sameynay dadkii aan ku shaqeysanay anaguna waa maamulinay hindi baan u keenay jirnay laakiin hadda waxa soo baxay dad oo san ilaahayna garaneen oo na ka baqeen maadaama kuwa ay ahaayeenba Christian ilaahay caabuda oo dhinaciisana ku dhex qasaya kuwan mushrikiintan oo san ilaahayna garaneen oo ku oranayaan muslim baan isla nahnay haddana waxba ku ogolaan si aan bid'aadinimo soo marina dadka ula dhaqmaaya adiga markaad Soomaali tahayna waa inaad ogaatiin kana kacdiin madaxdiina maanta dhan aflagaadeynaysiin oo leedihiin saasay sameeyeen tanay sameeyeen waxay tusaysaa kaliya inaysan ummadda Soomaalida wali bislaan waxayna sii dhiirigelinaysaa madaxdan Turkida iyo Imaaraatiga oo dhahaysa madaxdan hadii aanu taqaanta ku hayno wali dadkoodii ma bislaan maadaama dadkoodii xitaa hadday u laaban lahaayeen ay baraarugu lahaayeen waanu ka yar baqi lahayn laakiin dadkoodii baba caayay madaxdooda marka walaalayaal Suudaan hadii aad rabtiin inaad wax u qabatiin waxaad ka bilaawi kartay sida Falastiin ba ugu ooydiin wadamada Yurub iyo Mareykanka dhexdiin boycott lagu sameeyo inaad Soomaaliya dhexdeeda maanta mudaharaad ka sameeyeen dhexdiin Turkiga ma soo dejin karo hub uu u marinayo Soomaaliya dhulkeeda si uu u siiyo Etoobiyaanka iyo Eritreanka Somaliland dhulkeeda iyo badkeeda laga soo dejin karo hub loo adeegsanayo dhulkaas walaalaheena ma ku dhacdiina gabi ahaantiiba waan la wada xirxiraya internetkan laga jarjaraya saad ugu doodaysiin xitaa ha noogu yimaadaan dhulkeena oo ha soo galaan Falastiintu kuma dhacdiin inay Suudaanta ku sameeyeen maadaama ay halis ku tahay dadka wadanka maalgeliya madaxdeena baan arinkan ka fiirsada joojiyana munaafiqnimada si wanaagsan u baara wassalaamu calaykum